نزرع أماني بتربة اللي يعاني، فينا نبقى يا نبيع الحياة. احنا غيث المحبة للي كم جف قلبه وابتسامة تشد الانتباه. فينا نزرع أماني بتربة اللي يعاني، فينا نبقى يا نبيع الحياة. احنا غيث المحبة للي كم جف في قلبه وابتسامة تشد انتباه. لا 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 ما مللنا ولا من عملنا ننتظر مردود. مجتمعنا اجتمعنا يرتقي ويسود. salaadiinta madax dhaqameedka dhalinyarada aqoon-yahanka haweenka iyo martida kale ee munaasibadan qiimaha badan ka soo qayb galay waxaan idinka mahad celinaynaa martiqaadka gudida qabanqaabada xafladda caleemasaarka ee caaqilka beesha Idriis Cabdalle ee ardayga Bahay Ismaaciil idinku marti qaadeen inaad si weyn u soo ajiibtaan kana soo qayb gashaan munaasabadan qiimaha badan. waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan dhammaantiinba. waxaan u kacay in aan idinku mahadnaqo aan idinku soo dhaweeyo sida wanaagsan ee aad soo ajiibteen iyo caleemasaarka caaqil Axmed Xaaji Yuusuf oo aynu madashan u fadhino oo aynu doonayno inuu noqdo insha Allah biidhnillaahi alkariim mid wax u tara beesha maanta haddii aaba ku roonyay soo dooratay. marti sharafeed waxaan u sheegaynaa maanta inaan halka ku daahfurayno caaqilka cusub xafladiisii iyo caleemasaarkii oo ishuwan oo wada socda insha allahu tacaala. idinkuna aanu idinku marti qaadnay nalana caleemasaari doontaan. waxaananu uga mahad celinaynaa dhammaan martiqaadka aanu idiin fidinay sida wanaagsan ee u soo ajiibteen ee uga soo qayb gasheen ayaanu mar labaad iyo mar saddexaad ba idinka mahad celinaynaa. anoo ka wakiila qurba jooga meelay joogaanba caaqil waxaad ka guddoontaa hambalyo. intaa waxaa ii raacdaa lafdhabarta xafladdan iyo wanaaggan iyo sharaftan waxaa lahaa qurba jooga oo soo taageeray si fiicanna uga soo qayb qaatay. markaa waxay mudan yihiin in loo mahadnaqo siiba dadkii aada ugu takhasusay ee ka soo shaqeeyey. muqaashiya dee madaxda waa lagama maarmaan. ninkii caaqiibada waxba kordhinaya waxba xumayn maayo. marka anaga caaqilkayga guudnada waa ina Ibraahim Cabdilaahi labada qole kalena maxamed waxa weeye caaqilka Abubakar warqad ku soo qaaday kan maanta ay xafladiisa u fadhiyaan oo Xaaji Maxamed Xaaji Jaamaco waa deereer Idriis laakiin caaqilkayga guudnada Bahay Ismaaciil waa ninka sidaa loo fahmo. dadka qaar baa la tahay in yar marwar ku jira ay la yar muuqanaysa marwar kuma jiro. suldaankayguna dawayl Cabdilaahi Xirsi waa nin culimo badan uu soo barbaariyo diinta barayba imika ayuu malcaamada siixaya. dadku had iyo jeer waxay yiraahdeen keeba u hadal badan oo u firfircoon yay caaqilada ka dhigtaan. annagu waxaan ku soo dabaalay barta kuwaas laga dhigi jiray imika aan culimo ka dhignay inagu sidaas aan culimo uga dhignay. waa in la helo war sida aan yeelan mooyaan ruux yiraahdo war ilaahay ka yaabo shariicada islaamka ku soo dabaalo bal inuu noqdo cidda basuul laga dhiganayo. sharaftan qiimaha leh waxaanu leenahay ninka aan soo dooranay ee Bahay Ismaaciil aan ku soo dooranay ee Idriis Cabdalle aan ku soo dooranay oo qoyskani Idriisa nala caleemasaara. waa shay dhib badan caaqilku markasta waxa uu haystaa dambi aadan gelin. waxa ka soo askatoonaya odaygii isagoo inankiisii askateeyay wuxuu leeyahay iga qabo waa inankiisii gabadhii waa oranaysa waa ninkayga iga qabo waa labadii dad isugu xigay. markasta waxa uu haystaa inaadan qabin markasta waxa uu haystaa inaadan qabin waa wax dhib badan. waxa ka baxay ninka saddex la yimaada dooqaad
iyo hubsiimo iyo watashu dadka la tashado saddexdaa nin kala yimaadun baa ka baxa caaqilka maanta aynu caleema saaraynaa waa nin sheekha wuxuu haystaa gundhig buu haystaa diin buu yaqaanaa diintu wax kaloo marka laguma soo rogo inay kala saarto oo ay habto oo ay meeshooda dhisto adigu waa ku kala tukaday ninkani maanta caleemasaarayna u caleemasaarna caaqilka isagoo imaam masjida waan dhegaystay cilmigiisa waxaan ku kalsoonay inuu wax badan ku soo wadin doono beeshaan walaalaha nahay ee baxay ismaaciil guulahan idaraysna ninkii hagayaynu noqon doono iyadoo marka horeba waxaan jirin idarays hoggaanka baxay ismaaciil ugu horeeyey waa ninkii qalay 20 neefeegeeda markii la duranayay waa ninkii yidhi ingiliisa kaalay annaga haddaan nahay baxay ismaaciil tiradayada habariyo isoo dhan hilibkii cunaysa ninkii tusay buu ahaa ninka dakaba keenay darays buu ahaa waa dad hoggaanka yaqaana kii ka tasawiray ee ku sawiray buu ahaa markuu xiliiliga dareemayna idarays buu ahaa ee ilaahay cagtiisii taasay leedahay kaasuna wuxuu ahay darays kii salaadna tukaday oo islaam tukaday dib loogu celiyay leeri sheekhiba iyo sheekhuwaal ee dib loogu celiyay darays buu ahaa waa niman taariikhle waa niman aan nooganahay waa niman aan soo dhaweynayno haddaan weliba anigu aan nahay jirkii reer suudaad ku xidhan tahay allahaaga ku xidhnow mana ihid caaqil idarays mana ihid mid baha ismaaciil miihid mid habar yoonis caaqil ummadeed oo shiikha oo ummadda haga oo aqoon ku haga oo cilmi ku haga ilaahay ha kaa dhigo taasuna waa taas ha isku koobin baha ismaaciil iyo daraystoole taasuna waa taa xugaasha inta badan diin looma eego iyo damci ama dhaxal bay ku yimaadaan ama iminka iyagaaba isku caleema shubee adigu bahasha aad ku abtirsatay allah kugu guuleeya dadkana ku had waana kaaga mahad celinaynaa waa baarigaynaa insha allahu tacaala cabdi guuleed kolley wuxuu yidhi wax gaaraanu nahay sideedaba dadku ama habal bay isku raacaan ama xilfi bay isku raacaan baha ismaaciil xilfi bay isku raacday ee habar iskubay raacin halkaana waxaan leedahay habar waxa aad la tahay idarays iyo muuse cabdalle nimankaa faraha dhaadheerli waxba yayna lugayne innagaa isku habarahe aan hoosta isku ogaan أحمد يوسف شيخ أحمد يوسف محمد حاجي محمد إن الله سبحانه وتعالى إنه بركيه كدقه عاقلك من بركيسن هرب بركيسنا صاحبك شيخ أحمد يسوى إن شاء الله رجين إنه إن على مسار كيسن لما أنت بوجود الدعين إنه إن الله سبحانه وتعالى حلكها لو دورتي إياه عقاش بهاي اسماعيل كم ذي هي gaarahaan uu ka miye beesha darays cabdalle in sida awgeed ilaahay ku asturo xilkaas ayaan marka koobaad ugu ducaynaa amiin dhaha marka labaad sheekhu waa nin culimo ah ma aha nin qoys mana aha maxaan ku lahdayay ardaa ma oday ma aha dhammaanteen dadka muslimiinta abuu sheekhu yahay gaar ahaan deegaanada iyo dalkeennaba in sida awgeed ha loola socdo sheekha marka arrin kasta oo maxaan ku lahday xag culimo ah iyo xagga dhaqankaba sheekhu aadna wuu yaqaanaa khayr allaha siiyo aqoon badan baan sheekha isu leenay saaxiibkay sheekh axmed aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waan ugu hambalyeynayaa qaar ahaan uguna soo ducaynaynaa sheekh axmed waa nin culimo ah maadaama nin culimo yahay cuqaashina kusoo kordhay kulley cuqaash talada reerka diin buu kusoo kordhin doonaa guud ahaan waxaan leeyahay baha ismaaciil dadku imika wuxuu ku dhaqmaa oo badan oo socota oo muusiq khayri oo socda ah in reerku qaato dhaqankiisa macaamilaadkiisa ee u khaaskaa ama ay dadka kula macaamilayaan inay ku dhaqmaan shareecada islaamka waxaan kula talinayaa inaad shareecada islaamka ku dhaqantaan waan iman jirin xafladaha cuqaasha iyo badanaa kumaan badna oo mashquulkayga yaa iska badnaa laakiin xafladan waxaan u soo ajiibay oo weliba aan ugu soo degdegay saddexdaa shay mid weeyaan ardaaga idarays cabdalle oo waalida
oo duud sare ah oo markii la yidhaahdo Idriis Cabdulle Caaqil bay maanta samaynayaan ee la sheegay kaarkii la keenay waajib bay ugu noqotay inaan ka maqnaanin taas waa koow talabaad Sheekh Axmed oo naqaanay oo maaragtay aan culimo ahaan u kulannay oo anu hadii jeeraale sheekh meehi laakiin waxaan ay rag culimada kaaga dhowdhow marka aan ku kulannay dugsiga xaaxi oo mar madiirka ahaa aan ku kulannay meelo badan oo aan aqaanay qiyaadadiisa iyo maaragtay xalaal miiradkiisa iyo sheekhnimadiisa iyo odaynimadiisa la yiri sheekhaasa dhaqanka soo galayana waan ku farxay oo waxaan dee xasuustaa haddaan oolaayaan xaajoon ku kulmi doono oo maaragtay aanu taageero iyo garab kale heli doono taasna wuu soo ajiibay tasaddexaad waxa jira rag salaadiinta ka qiimo badan oo ogaasha ka qiimo badan magac baa ku baxee oo hadda jiraale Soomaalidu waxay lahayd magac ay ninka caynkaas ku tilmaanto waxa la yiraahdaa boqortiiriye ama beerdaajiye Sheekh Axmed Maxamed oo isagana aanu saaxiib ahayn culimadeena kamida hogaansteena kamida booska aan sheegayna ku sifoowayna wuxuu ii keenay kaarka saddexdaas sifo saaran baan ku soo ajiibay xaflad boqoran oo bilan oo inuu joogno inaynu caleema saaro sheekheena caaqilkeena ay soo dooratay beesha Idriis Cabdulle ardayga Baha Ismaaciil oo inuu halkan maanta u joogno caleema saarkiisa waxaan hambalyeeynaa oo aad iyo aad ugu bogaadinaya rag iyo haweenba beeshaas Idriis Cabdulle soo xushay halyeyga sheekha ah caaqilka ah waxgaradka ah dhaqan yaqaanka ah ee soo doorateen caaqilnimada inuu hogaamiyo reerka oo ku soo biiro kuwii hore ee jiray aad iyo aad baan maartay ku hambalyeynaa hambalyo leenahay caaqilka waa la sheegay waa sheekh waa qof cilmi yaqaana waa qof diin yaqaana waa nin ilaahay aqoon baray marka waxaynu dardaaran badan uma baahna diinta uu yaqaana waa tii lagu dhaqmayay ee aynu qoys iyo qofba ummad muslim nahay aynu ku dhaqmaynay isaguna kolley hogaamiyayaasheena diimeed buu ka mid yahay ama madaxdeena diinta ayuu ka mid ahaa maantana dhaqankii buu kusoo biiray waynu ku caleemashubaynaa waxaan leenahay waanu garab taagannahay caaqilkii beesha Bumbur oo isagana hawl yeeshay wuxuu soo diray hambalyo caaqilka wuxuu leeyahay waan garab taaganahay waan la shaqeynayaa annaguna saasoo kale aanu la shaqeynaa haddaan nahay salaadiintiisii waxa weeyaan waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay soo xulidda soo xusheen ardaagiinu ninkaas wadaadka ah caaqilkana ah ee ay noogu soo xusheen waa caaqil waa Ismaaciil waa caaqil Nawri Yunis waa caaqil Soomaaliyeed waa caaqil reer Soomaaliland oo dhan Axmed waxa weeyaan qoladii loogu celiyay salaada Ilaahay waajibka ah hadda ayaa xaajigii waa ka yara habsaamay waa kuwii halkan waqooyiga qoladan la degi jiray Saad Muuse salaadii waa la salaamo naqsaday xaajigii oo ka yara habsaamo oo kabash halkaa ka soo baxay waxay yidhaa waar sawtan xaajigii salaadii oo mar labaad baa la qiimay dad qaamursana waxa weeye reerka magacaa leh ee karaamadaa leh ee haddii aladmahay weeyaan maantana haddii aad caaqilnimo iyo haddii aladmahay ay ku soo korodhay madax dhaqameedka uu soo galay reerka waa kaalin looga baahnaa oo uu mudan yahay boqolkiiba boqol weeyaan ilaahayna ha la qabto ilaahayna ha ku karaameeyo ilaahay baa mahadle waxaa kaloona mahadnaqayaa beeshan Baha Ismaaciil ee fikirkii aan watay 20 sano ka hor ila qaadatay aad baan ugu mahadnaqayaa taas oo soo maray waqti badan iyo dhaqaale badan aan geliyo markaan arkay Baha Ismaaciil baaxad ay leedahay in cuqaasha la badiyo fikirka Baha Ismaaciisha maanta ila qaadatay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ku soo dhaweynayaa caaqil Axmed Xaaji Yuusuf
xaaji maxamed jaamac ayaan ku soo dhawaynayaa mikrofoonka oo caaqalkaygii iga dambeeya oo aad ugu baahnaa howlaha reerku baaxadiisu leeyahay markaan qiyaaso aad iyo aad anigoo ugu faraxsan caaqilkaa maanta yimi waxaan ku soo dhawaynayaa mikrofoonka soo dhawow caaqil soo dhawow marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bacda shukri illaah ilaahay mahadnaqiisa dabadii waxaan u mahad celinayaa dadka faraha badan leh ee labeenta ah ee maaragtay xafladan ka igala soo qayb galay maxaa ma doonayo inaan noqdo caaqil yidhaahda kitaab alla dantay ma og kitaab allay dantay ma og oo shareecada islaamka deedafeeya waxaan doonayaa oo ku talagalkaygu yahay in marjaciyadda aan u noqonayna ay noqoto shareecada islaamka waa ballan waan amar ilaahay bixiyey ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum saas oo kale ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum in shareecada aynu u noqonno waa amar aayaadka qur-aanka laynagu faray falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء آية الجية وحلينا فريا إنه شريعة الإسلام كدغن كدغنو أو كدسنو أو كدغنو أو أنغنو marka insha Allah taasina waa hadii Ilaahay ka dhigo Ilaahay waxa iga baridaan in Ilaahay fulinteeda ii fududeeyo ducana way idinka doonaya bulshadiina sharafta halka timi maxaa dhaday waxaanan maartay aad baan mar labaad iyo mar saddexaadna maxaa dhaday bulshada qeybada salaadiinta culimada uqaasha dhammaan u mahad celinaya بالوجع ما نبالي وسط سود الليالي شعل نور كلنا عزم وإرادة في طريق الريادة والتطوع عبادة وبشور